uways alqarni ninkii la odhan jiray ee weliga ahaa ee ducadiisu mustajaabada ahayd ma ahayn saxaabiyo taabici buu ahaa. waxaa la yihi ninkaasi nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa u sheego kusii yidhi imdaad alyaman, ciidanka mujaahidiinta yaman ka iman doona waxaa la socon doona nin la yidhaahdo uways binu caamir baa la socon doona oo qarana oo summa min muraada. ninkaasi waa nin jirhkiisa baras baa ku dhacday, barastiina ilaahay waa ka shaafiyey. mowdicu dirham, lacagta dirhamka meel la dhigo oo jirhkiisa ku taalla in la eg bay kaga hadhay barastii, intii kale ilaahay waa ka shaafiyey. hooye ayuu ninkaasi hayaayo hooyadiibuu baari u yahee haddaad la kulantid buu nebigu ka yidhi cumar binu khadaabow ninkaa waxaad ka tiraahdaa ilaahay dembi dhaaf ii weydii ka dheh. cumar binu khadaab allaha raalli ka noqdee maalintuu nebigu arrintaa u sheegay ilaa khilaafadii abibakar ilaa khilaafadiisii dadka xujayda yaman ka imanaya ama dadka mujaahidiinta ee xoojinta jihaadka u imanaya magaalada madiina, jihaadka shaam baa markaa lagu jihaadayo loo baxayay inay jihaadka ka qeyb galaan. dadka u imanayabu cumar intuu dhex mara buu odhan jiray hal fiikum uways binu caamir, uways binu caamir maynigu jiraa, uways maynila socdaa buu odhan jiray. deedna markaasay odhan jireen mayna lama socdo. haddana sanadka dambe kolkay yimaadaan xujaydu ay soo xajiyaan reer yamaneed ayuu cumar u tegi jiru odhan jireen manila socdaa uways. markaasay yidhahdeen sanad walba cumaro waad noo timaadaa, uways baadna weydiisaaye mid uways la yidhaahdo oo maaragtaanay iska miskiina oo faqiira oo dadkan maaragtaana ishu qabanaysa aanan ahayn ayaa nala socday oo may isagii geelii aan wadanay iyo awrtii aan fuushanayn ayuu noo raacay oo maaragtaane buuraha gadaashooda ayuu geela ku jiraa. markaasuu cumar soo orday, waxaa la socday marka cumar bnu khadaab, abalxasan caliy bnu abi aalib radia allahu canhu ayaa la socday. dadna markay u yimaadeen cumar u waraystay ma uways baa tahay? ha uways baan ahay. bani caamir ibnu caamir haa, min muraad haa, uma min qaran haa. markaasuu cumar weydiiyuu ku yidhi baras ma kugu dhacday? haa. ma ka bogsatay meel dirham la dhiga mooyaane intii kale ilaahay ma kaa shaafiyey? haa. hooye ma lahaydo hooyada ma kaa dhimatay? haa. cumar bnu khadaab ilaa uu yidhahdo ilaahay dembi dhaaf ii weydii. seed ugu ogaatay? nabigaa noo kaa sheegay calayhi salaatu wasalaam. waxaa la yihi uways binu caamir nabiga inuu u yimaado waxa uu kaga mashquulsanaa waa khidmada hooyada weeyaan. marka hooyadu qiimo weyn bay diinta islaamka ku leedahay. curwata ibnu zubayr baa la sheegay hooyadii baari buu u ahaa, ilaa la ogaaday inuu hooyadii baari uu yahay. lagu yihi curwow hal maalin adoo hooyada cunto la cunaya laguma arkine maxay ku dhacday noo sheeg. wuxuu yihi waxaan hooyadii cuntada ula cuni waayey baa nii sheegi. luqmada ay damacda in iyadu ay qaadato inaan ka hor qaato oon cuno oon caaqul waalideyn ku noqdaan ka baqay buu yihi. maalintay ka dhimatay hooyadiina sida ilmaha yarba u baroorto u ooyey. markaasaa lagu yihi nin sheekha oo muxaditha ayaat oo axaadiidii nabiga sal alla alay wasalam baa taqaanaaye maxaad hooyadaa geerideeda san ugu ooyeysaa? geeridu waa xaq oo nabiyullaahi muxamed sal alla alay wasalam baa ummaddu ay ka sabirtay, abubakar baa iyo ka sabreen, cumar bay ka sabreen, maxaad hooyadaa sidan ugu ooyeysaa curwow? wuxuu yihi hooyadii ajasheeda lama ooyaye, ajashu waa xaq weeyaan. hooyaday way dhimato ilaahay bay hortagtay, laakiin albaabadii jannada looga gelayay baa maanta aniga iga xidhmay buu yihi. albaabka iga xidhmay ayaan la ooyayaa buu yihi la-aantiisa. maalintii hooyadu ilmaha ka dhimato malag baa samada ka dhawaaqoo yidhaahdaa addoonkan ilaahayow tii aan sababteeda kugu naxariisanaynay kaa dhimatee camal aan kugu naxariisano maanta laga bilaabo adigu la kaalay. fadaa'ilka hooyadu ay leedahay wax la qiyaasi kara maaha. bal abuurka bini aadanka ilaahay markuu ka waramayey labiyo dhidiga ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu horeysiiyey unthaa buu horeysiiyey unthaa. yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaathan baa ilaahay yidhi. inaath abuurka ragga wuxuu ilaahay ka hormariyey abuurka haweenka. daa'iman u fiirsada qur-aanka, sunnada nabiga eega sal alla alay wasalam. makaanad weyn bay diinta islaamku ay haweenka dhigtay, gabadha muuminada. marka xaqiina lama koobi karaayo, laakiin makaanadeed islaamka ugu jirtaa, booskeed ku jirtaa. hooyadu waa macalimad, inanta waa macalimad ogow.
waxaa rag maanta adduunyada joogo dhan ininkaa dhalay, hadday fiicnaadaanna ininkaa fiicnaanta u sababa, hadday xun yihiin ininkaa u sababa baa la yidhi. kula mawluudin yuuladu cala alfitra, ilmo kastoo dhasha fitradda islaamka ku dhashaa buu nebigu yihi. laakiin ayaa yahuudi ka dhigaya waa hooye iyo aabba un, ayaa nasraani ka dhigaya waa hooye iyo aabba un, ayaa majuusi ka dhigaya waa hooye iyo aabba un. hooye iyo aabbana markii la eegay inta badan ilmuhu wuxuu ag joogaa waa hooyada weeyaan. marka haweenku hadday noo hagaagaan oo gabdhuhu ay noo hagaagaan waxay ka dhigan tahay mujtamac oo dhan baa hagaagi. hal gabadha oo hagaagta baa la yidhi oo saalixad noqota 1,000 nin oo awliye oo saalixiina ayay u dhigantaa baa la yidhi. waayo 1,000 nin ee awliyada saalixiintu awliye iyo saalixiin ma dhali karayaan, laakiin gabadha muuminada ee saalixaddu ubadkeyga way tarbiyadeynaysaa iyada. sidii nin culammada islaamka kamida ayaa la sheegay, hooyadii markii aabihii uu ka dhintay ayay hooyadii ku dartay safar, markaabay sahayna weysiiso ay ku tiri magaalada galo majaalista culummada orodoo cilmiga ka soo baro. akhlaaqday ku tarbiyadaysay iyo dhaqankiina u wataa. safarkii uu la socday ayaa habeenkii niman tuuga intay dhexda u galeen ayaa dadkii la go-doomiyey. qof walba markaa wuxuu uu lacag iyo dahab u haystay qarsanayaa. yarkii yaraa tuugii u horreeyey qabtay baa ku yidhi lacag maxaad wadataa? lacagtuu watay oo dhan buu sheegay baa la yidhi. lacag aad u badan bay ahayd. markaabuu ninkii tuugii ilmi yaraa uu ka naxay, yarowe xoolaha intan leeg adeer maxaad iskaga sheegtood u qarsan weyday? markaabuu yihi hooyadii baa igu tiri weligaa been ha sheegin, haddaad been sheegta ilaahayna uu ku nici, bini aadamkuna way ku nacayaane. yarkii yaraa nimankii tuugiintii way la yaabeen, lacag badan buu wataa, weligii been ma sheegin, muxuu been u sheegi waayey? hooyaa ku tarbiyadaysay. tarbiyaddu aqalka kala yimiday ayuu mujtamaca la dhex socdaa. aqalkana qofka jooga waa haweenayda weeyaan. aabbuhu inta badan dibaduu joogaa, waa inanta waxa aqalada joogta. aqalka maaragtaana 7 wiil ay gasho, 7 wiil oo walaalaha guriga ay galaan, hadday inan la joogin gurigaa basaas iyo daranyo waa laga dareemi. laakiin guriga inan keliya ay ku nooshahay iyo 7 wiil oo walaalaheeda ay ku nooshahay, gurigaasi wuxuu ku qurux badan yahay waa gabadha weeyaan. marka gabdhaha muuminaadka ee saalixaadka qur-aanka ilaahay ku ammaanay waa inaan dhaqanka islaamka ilaahay nagu ammaanay inaan raacno laynaga rabaa. oo hadday hagaagaan mujtamaca hagaagiisu wuxuu ku xidhan yahay waa hagaagiina ininka weeyaan. marka waa inaan ilaahay ka baqno weeyaan. oo khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman adag weeyaan, zaman adag oo dhallinyarada welibana usii daran. gabdhuhuna wayba kasii xag jiraanba. waxaan ku badbaadaynaa markaa inaan diinteenna qabsano, ilaahay inaan ka baqno. ilaahay ittaqi llaha xayumaa kunt, meeshaad doontaba joogo ilaahay ka baq, ilaahay ka baq. haddaad yaraantaada ilaahay kaga baqdid, weynaantaada ilaahay noloshaada kuu barakayn. wixii adiga ilaahay ubad uu kusoo dhex mariyo o dhanna baraka yeelanayaan, barako. gabadha saalixadda ee muuminaddu mujtamaca dhan bay bedelaysaa iyadu. 8 ubadee inantu ay dhashay baa la yidhi gabadhu ay dhashay, aabbuhu ma tarbiyadeyn kara 8, uma sabri karaayo, ma seexin karaayo, ma cuntaysiin karaayo, dharka kama bedeli karaayo isagu. laakiin hooyadu intaasoo dhan bay u dulqaadan. 10 ubadoo hareeraha ka fadhiisatay hooyada baa la yidhi qayladooda waa u dulqaadan kartaa, laakiin dibadda gabadhu markay u baxdo, gabadh dariska hadday isku qayliyaan qayladeeda u adkaysan kari mayso. halka ragguna baa la yidhi qaylada guriga uma adkaysan karaan, laakiin qaylada dibadda ragga waa u adkaysan karaan. waayo gabdhaha meesha loogu talagalay inay ku sugnaadaan ay fadhiyaan waa aqalka dhexdeeda weeyaan. waxaa diin laynii barayaa, ee madaarista layniigu furay, ee muxaadarada layniigu jeedinayaa, ee culammadu ay nii wacdinayaan waxa weeyaan wax kale maaha inay gabadhu noqotaa la doonayaa murabiyad aqalkayga ka soo saarta culamo iyo xufaad alqur-aan. tarbiyadda ubadku halka ay ka soo baxayso waa aqalka. aqalkana macalimada ugu weyne dhex joogta waa hooyada, aabbaha maaha. ilmuhu inta badan hooyadu xidhiir la leeyahay hooyada. aabbaha ciyaalku waa u kala soocan yihiin. ka waxbarashada ku fiicana si gaar u ilaaliyaa, ka waxbarashada ku liitana si gaar u eegaa oo il gaar ku eegaa. laakiin hooyadu sidaa maaha. ka ugu fiican ubadkeyga, ugu tacliim fiican, ugu akhlaaq wanaagsan, ilaa ka ugu akhlaaq liita, iyada xaggayga ubadka waa u siman yihiinoo mid walba wuxuu isku arkaa hooyadu inay isaga ubadka ugu jeceshahay. hadduu ilmaheegu yahay ka xaafadda ugu liita, waxay odhanaysaa hooyadu ciyaalka xaafadda ayaa xun oo inankayga xumaynaye, inankayga waa ka mujtamacan xaafadda ugu akhlaaq wanaagsan weeyaan. sifaadkaasi waa sifaadka haweenku ay leeyihiin.
الرحمة الله الرحمن كان الرحمة دا كسفو بي أسماء إلهي سقالي سقاشك مقع أوه الرحمن هو يدنا الصفة أي كسفو دي ومحي والرحمة ويان والنبي عليه الصلاة والسلام معلم بوارك الدقال لقو جرو سلان المهي قادتو الله تكودك ستي مركب النبي صحابة يقول إيجا هوي نيدا المهي انت لك عبد الضم يكتور إيسا ما يا النبي الله كتور ميسو مركب النبي ورسده هو يدو المهي وقلنا حريسان إيسو أيها إلهينا أدونك سوقنا حريس بدن يحب رسولك يدي مركب الرحمة باكو سفيسانتين إنكو